السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيسكا ودنيغا فنانينتي عانكا هيد ودنين تهيد اللي سو غاري ودنينimada wixii dhintan Allah u naxariisto wixii nool khayr Allah siiyo inta ka bacdi maanta weedarku aad buu xun yahay barafku aad buu u badan yahay laakiin qabow badan male laakiin barafka aad u badan dhamaan waxaan leeyahay dadweynaha Allah idinka nabadgeliyo dhamaanteen Ilaahay nagu nabadgeliyo inta ka bacdi waxaynu u baahanay mar walba inaan iswacyi gelino waddankeena xaaladdu ku jiro waqtigan xaadirka khaas ahaan Somali State waqtigan xaadirka wuxuu ku jiro iyo isbedelkii sida uu socdo iyo mar walba xaaladda meeshu marayo iyo wixii ka dhiman iyo wixii ku soo saaciday mar walba in la isla socodsiyo waa laga maarmaan iyo wixii mar walba maaragtay soo ka dhawayn la isla socodsiyo waxa weeyaan maalmahan oo dhan madaxweynuhu wafdi uu ku jiray Mustafa Umar wafdi uu ku maqnaa kulli uu soo dhamaystay walow meelo arbushaad ay ka dhacdhaceen oo maaragtay dhinacan iyo aw bare mudaharaado ay ka dhacdhaceen ay kulli ku mudaharaadayaan maaragtay dawladda iyagoo calanka Oromada maaragtay qaadanaya arinta ayadana kulli qof Soomaaliyeed Soomaalinimadiisa hadduu hadaa madaxweynaha wax ka tabanayo isagoo Soomaalinimo uu fikradiisa dhiiban kara wixii khalad sheegan kara adigoo waxna qasin waxna dilin mudaharaadkaagu inuu noqdo mid biisa oo nabadgelyo oo dhagax tuuri waxba la socon saas waa laga qurux badan yahay waxaana kulli dad gaari la gadoomay iyana waa la sheegayaa oo kulli guuleed casoowe iyo waxa leeyahay maaragtay waa gaari baa la gadoomay
gacmaha iyo waxbuu ka noqday baa kolley maaragtay soo duulduulaysa waftigaasna isagana saas weeye xaaladiisu wixii kolley dawladdu qofkii khalad galada isaga u taallaa marka halkaana kolley waxay qoonsadeen iyo waxay tirsanayaan iyo in maaragtay kolley awrka u raran ma garan karno kolley madoobe cirbaa u raran baa laga yaabaa laakiin soomaalidu waxay ku maamaaday caano fiiq la yidhi oon si fiican loo kabasan babaday wax yeelaan marka in qof kastaaba inuu deganaansho badan inuu sameeyo hadduu hataa wax tabanaya inuu magaca soomaaliga ku tabto isagoon dhibaato geysanin dhaliishiisa dhiibto yaan soo dhawaynaynaa laakiin wax maaragtay ama dil ama qof wax loo dhimo ama qof la rafaadeeyo ama hebel baa kan ahoo maaragtay hebel baa wax lagu soo sheegay iyo hebel baa maaragtay dawladda ka horjeeda iyo hebel ha la xidho waxyaalahaas waa waxyaalihii cabdi maxamuud cumar maamulkii hore jiray lagaga dacwoonayo weeyaan arrintaa iyadana arrinaan soo dhaweyn karna maaha taana waxaan leenahay qof walba ka fiirso maamulka iyo shacabkaba labaduba inay ka fiirsadaan weeyaan way arrintaa iyada aad uga taxadaraan marna inaanaan maqlin yaan soo dhawaynaynaa intaa ka bacdi dawladdii cabdi maxamuud cumar dhaliilihii ay lahayd iyo khaladada ay lahayd waan soo bandhignaa waan ka hadallaa waan sheegnaa ma qarinno wixii lagu diiday iyo dhaliishiisii in la caddeeyo waa muhiim aad bay muhiim u tahay waynun sheegnaa laakiin hal su'aal baan maanta idin weydiinayaa dadweynaha Somali State meel walbood ku nooshiin arrin baan maanta idiin sheegayaa idinkana dhaadhicinayaa ood arki doontaan kolley Soomaalidu waxay ku mahmahday qof meeli u caddahay meeli ka madow waxaa laga yaabaa inaydaan aaminin inaad matalan ka doodaan inaad maaragtay dhibsataan yaa suurtagala dadna inay maaragtay yani arrinta ayada ay ka xanaaqaan ayaa suurtagala oo yani arrinta ay ficil ka muujiyaan laakiin ficil lagama muujinayo waxa weeyaan laakiin tallaabo sharciya ayaa la rabaa in la keeno dadkii arrimaha ku kacay future-ka sharciga in la hor keeno yaan codsanaynaa insha Allah haddii ilaahay idhaaho arrintaa marka la soo caddeeyo ee sida proofka waa la soo caddeeyo waan ognahay laakiin haddana waan soo bandhigi doonaa insha Allah haddii ilaahay idhaaho bal waxaan idin weydiiyey qof la xidhay oo maxkamadda la geeyey oo dawladdu u xidhan yahay waxbay ku haystaan qofka inay maxkamaddiisa maaragtay intay sharciga mariyaan ay maaragtay wixii ay ku caddaystaan qofka ay xukumaan oo maaragtay sharciga isagoon dhibaato loo geysanin oon la dhibaataynin oon la hagardaamaynin oon dhib loo geysanin qofka sharciga soo lama horgeyn karo waa yaas ilaah baan idinku dhaariya waxaan maanta idin weydiinayaa qofka Soomaaliga cabdi maxamuud cumar erayadii lagu eedeynayay waxyaalo ka khatarsan oo dhacay oo khalad ayaan idiin sheegayaa khaladkaana aad bay muhiim u tahay in la isu sheego iyadoon dawlad la mucaaradaynin la xumaynaynin la dhibaataynaynin laakiin inay dawladdeenu shaqayso oo ama dawladnimadu shaqayso arrintu ay socoto oo Mustafa dawladdiisu si sharaf la u shaqayso yaa la doonayaa dhaliishana loo sheego wixii fiicanna wixii xunna laga qabto waxaan idin sheegayaa ilka case waa la qabtay ilka case markii la qabtay dawladda dambi ku soo oogtay waan ognahay waxa maar dambiga lagu soo oogay waan la soconaa cid dhibaato maaragtay waan la soconaa dawladdii cabdi maxamuud cumar dadkii u shaqeynayay madaxda ahaana dawladdii ka tirsan yihiin ilmaadareero ninka intii la qabtay la xidhay la jir dilay ee waliba la cabsiiyey biyo wax ku jiraan intii la cabsiiyey carab ku dheeraaday ilaah baan idinku dhaariyay arrinta isaga waa arrimihii cabdi maxamuud cumar lalaha wuu geystay dadka geystay maxaynu ka yeelaa dadweynaha Soomaaliyeed ninka in la xukumo sharciga la geeyo waynu isku ognahay inaan la dhibaataynin waynu isku ognahay inaan maaragtay la xumaado waynu isku ognahay qofkii dambi gala sharciga in la horgeeyo oo maxkamadda la geeyo oo ama dawladdu xukunta ama ay sii dayso taa waynu isku ognahay laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ma isku og yihiin qof intii la xidhay in la jir dilo oo intii biyo la siiyo carabku dheeraado la jajabiyo arrintaasi maynu maaragtay may ku jirteen dastuurkeenna iyo balaankeenna ma ku jirtay dadkeenna ah doonaya isbeddelka doonaya ama dhibaatada waddankeenna ka xumaa dhammaantiin saynu dhanaa waa maya arrinta iyada ah qof raalli ka ah ama ku farxaya ma jirto waxaanu idiin haynaa qof walaaladiina oo Soomaali ah oo dhinac walba maaragtay aan
dembi cad weli lagu haynin laakiin dawladdu ay soo eedaysay dawlad iyagana wax ka dhaxayso waa inay sharciga dawladdu mariso waa waajib waana maaragtay dawladdu ku soo dacweyn kartaa weena kuwa lagu xiri karaa taa iyada ninka doodi kara ma jiro laakiin layskuma ogeyn qof intii la qabto intii la cabsiyo biyo wax ku jiraan qofku carabku dheeraado ama qofka intii la jirdilo la jajabiyo kadib la keeno isagoo jajaban oo naafa in la keeno arrintaas ma cadaalad baa waa ma cadaalad maaha qofka anagoon ammaanaynin oon ugu doodaynin wax kale laakiin bini'aadanimada iyo huyumareednimada iyo maaragtay qofka bini'aadanka in xaqiisa la mariyaa waajiba in la jirdilo war qofku ma argagixisaa qofku muxuu yahay waxaaban la ogolaynba qof kastoo bini'aadana in la dhibaateeyo lama ogola waa in sharciga la hormariyo maxaa dadkaas loo cabsiiyey geedasha maaragtay daawada loo cabsiiyey biyuhu ku jiraan ee waxay yihiin aan la garanayn oo qofkii carabku dheeraaday afkiisina uu serious yahay gacantiisiina in la jajabiyo oo maanta naafato ma cadaalad baa arrinta ayada arrin la soo dhaweyn kara maaha qof kastaana wuu ka xun yahay ninna ma ogolo qof in la dhibaateeyo arrinta ayadana waxaan leenahay dadkii dhibaatada geystay ee dad qofka dhibaatada u geystay hadduu dawladda dembi ka galay oo dawladdu dembi ku soo oogayso dawladday u taallaa markay ka soo dhammaysato laakiin intii la dilo oo la dhibaateeyo oo la jajabiyo in maalin walba maxkamadda intii lagu soo celiyo isagoo jajaban oo sanka dadka laga marmariyo arrintaas waxaad moodaa inay arrin aad u xun tahay oo dhibaatadeeda leh taariikhdana qormaysa qof walbana dhaliil u galaysa weeyaan waxaanana codsanaynaa dadkii dhibaatadaa geystay ee weliba si khaaska weliba u geystay sida luuqa ah ee weliba maaragtay luuqa u geystay sharciga in la hor keeno oo maaragtay tallaabo degdega laga qaado ayaa waajiba laakiin qof xidhan oo maxbuusa oo wax optional ahayn oo u xidhan oo gacanta ugu jira oo maaragtay maalin walba la soo celin karo aan la ogolayn la dhibaateeyo cabdi maxamuud cumar miyaa la jirdilaa miyaa la dhibaateeyaa maalin walba maxkamadda la keenaa caadi buu ugu laabtaa jeelkiisii shaqadii meeshii la geeyey dhibaato looma geysto lama jirdilo laakiin ma cadaalad baa in la jirdilo qofka isaga waa maya arrinta ayada waxaa arrin dhacday oo xaqiiqa weeyaan oo proofa oo dacaayad iyo propaganda midna ayna ahayn soona dhaweyn mayno arrinta ayada qof kasta oo lagu sameeyo arrinta ayada soo dhaweyn mayno ma soo dhaweynayno arrinta ayada waa cadaalad darro waa dulmi waa arrin qofka bini'aadanka dulmi ku aweeyaan oo aakhirada adduunka midna aan ku fiicnayn nin walbana maalin bay ku imanaysaa maalin ayay ku imanaysaa arrinta iyadii oo maanta imanaysaa kumat arrinta iyadaana arrin loo dulqaadan kara maaha dadweynahana waxaan leeyahay in arrinta iyada qof walba fikradiisa ka dhiibta saxda saliimka weeyaan raalli maad ka tihiin qof Soomaaliya in la dhibaateeyo ama la jirdilo ama maaragtay in si bilaa sharciya oo sharciga ka baxsan in lagu sameeyo raalli ma ka tihiin waxaan u arkaa haddaad raalli ka tihiin oo idan arrinta aydaanu arrin khalada waxaan u arkaa cabdi maxamuud cumar khalad baad ku haysateen yay noqonaysaa cabdi maxamuud cumar ka gardarnaydeen ba markaa imanaysa cabdi interest baad markaa u erideen ba imanaysa markaa iyada waa arrimo badan bay markaa soo isgaliya haddii kale cadaalad darrada iyo dulmiga dhaca qofka geysta walaalayaalow si sharciya qofka isaga in looga hadlo looga jawaabo waajib weeyaan waa waajib qof in la jajabiyo ama la siiyo sidii dadka maaragtay in arrimo khatar sidii qof geystay amal oo kale in la cabsiyo daawooyin oo geed la cabsiyo oo biyo maaragtay in wax ku jiraan la cabsiyo oo qofkii la jajabiyo oo la yiraahdo qasab wax ku sheeg war anigu ma ihi cabdi maxamuud carabtigi baan ahay abti baanu ahay waa run laakiin wiilkayga hadduu maanta ka soo arbaxo oo caawin kara waa wiilkiisii laakiin xaq looguma laha in la dilo cabdi maxamuud cumar walaaladii iyo kuwii la dhashay baa jooga magaalada dadkii la dhasho dhan baa jooga waay ilka case keligii loo baadar gareeyay waay keligii loo maagaya dhalasho qaraabanimo ayay yihiin oo ehelnimo un bay yihiin kuwii la dhashay ee walaaladii ehelkii baa jooga magaalada wax loo geystay wax dhibaato midna ma aragno arrinta ayadana waxaan u arkaa arrin cadaalad darra oon xaq ahayn nin walbana inaanu hadlo waajib weeyaan qofna inaana anugu maaragnin aan kalayn ninna uma aabayeelay dawladdana in la caayo ama luxmaatay ma ogoli laakiin waxaan sheegayaa dulmiga jira in aan ka hadlo ilka case way jirdileen waa la dhaawacay gacantiisa waa naafa maanta
weliba waxaa la cabsiiyey biyo wax ku jiraan baa qasab lagu cabsiiyey intii la jidilaa qasab lagu cabsiiyey markaabuu carabku soo dheeraaday markaabuu nooc kala noqday markaaba wax maalmo dhan u besti ah arrinta ayadana arrin la soo dhaweyn karo ma aha waxayna noqonaysaa hooyadii figeeyow aduu maxaad faa'iiday arrinta arrin la soo dhaweyn kara maaha waa wax naxdin leh wax laga xumaado wax laga dhibaatoodo weeyaan aad looga naxo weeyaan lagana dhiidhiyo weeyaan in laga jawaaban ay waajib tahay waxaan ognahay dadkii ugu caansanaa ee waxyaalaha uga geystay ee weliba shacabka gumaaday inay dawladda saraakiil ka yihiin madax yihiin joogaan dawladduna iyadu ay cafido iyada gaar u tahay marka macquul ma aha qofkii qof dilay iyo qof la tuhmayo nin bay qaraabo yihiin lagu xidhayo labada arrimo is qaadan kara maaha marka waxay noqonaysaa cadaalad darro khalad ku jirta oon cid saxda ayna haysanin yaa meesha ka muuqata marka dhammaan waxaan leeyahay dadweynaha inay arrintaa ka jawaabaan iyaga oo deganaansho muujinaya oon khalad samaynaynin oon aflagaada ku jirin oon qofna inay wuxu dhimaan isku dayaynin inay yidhaahaan arrintaas waa khalad ma soo dhaweynayno waa dulmi qofkaas xuquuqdiisa inuu helo waa waajib xaqiisa inuu helo waa waajib inuu si nolol leh oo sharaf leh waddankiisa ugu noolaado isagoo maxkamadda sugaya ayaa waajiba ilaa intaad wax ku soo cadaysanaysaan wax lagu caddeeyana ilaa hadda wax la hoos dhigdhigayo oo maaragtay ugu qurux mooye ma hayno arrintaa iyadana ma la soo dhaweyn karo ilkaas iyadoona siyaasiyan iyo maskixiyanba isku mabda' mani laakiin waxa weeyaan weliga iyo allahina telefon iyo wixii qana midna weliga lama xidhiirin laakiin waxaan ugu hadlayaa la siyaasadna maahe total waan korjay laakiin dulmiga loo geysanayo ama lagu samaynayo ayaana ogolayn sabab wixii aan diidnay awal weeyaan kuwa ku daawanaya ee eegayana waxaanu aragnaa inay dulmiilayaal yihiin inay danaystayaal yihiin inay nimanaan dadka ka naxaynin wax danahoy ka leeyihiin ayna jirin baan ognahay waxaanan caddaynaynaa dad badan sanadka inayna insha allah inayna mateli doonin oo daaqadda ka bixi doonaan yaanu ololaheeda gelaynaa dad badan baa la fashilin doonaa dad badan baa suuqa laga saari doonaa dad aad u badan ayaa suuqa laga saari doonaa oon shacabkaa matelin oo laakiin muuqaalka inay ku matelaan aad moodo soo dhaweyn maayo arrinta ayada dhammaantiinna waxaad ka codsanayaa sheergareeya arrinta ayada waxaanan soo dhaweynaynin qofka doonaya fiiri ninka waddanka wixii ka dhacay waynu ognahay genocidean innaba caadi ahayn baa waddanka ka dhacay oo haddii lasoo tiro kooba aan yaabu dhimanayno dadkii geystayna waddankay wada joogaan in lagu caddeeyana lama rabo hal shakhsi buu hadda la daba socdaa oo nin maaragtay shacab oo isagu dawladu shaqaynay qaraabanimo lagu xidhayaa qaraabanimada haddii qaraabo la isku xidhay dhammaan cabdi maxamed cumar wixii la shaqaynayay way joogaan iyagoo qaraabadii ah oo ehelkii ah oo meel kasta leh waxbana looma dhimayo ilka casa today haddii la sii daayo cabdi maxamed cumar waa wiilkiisii inuu taga maxkamaddiisa waa waajib sharcigaana u ogol qof u diidi karo odhan kara uma tegi karo ma jiro saa waa wiilkiisii isaga abtibu u yahay weligood ma kala go'ayaan wax kasta haddaad samaysaan in xabad lagu dhufto caawa dhinta ma aqaano dee uu maaragtay dhinto uu saa ku tago laakiin weligii lama kala jarayo taa nin walaba horta ku talagal taas qof walaba ku talagal arrinta ayadaa marka anu maanta waxaan idiin soo jeedinayaa oo idiin caddaynayaa in ilka case inkastuu nin aad aan xogagaal u ahay u yahay laakiin haddana in lagu sameeyo arrintaa iyadaa ma soo dhawaynayo ma sharfayo aad horena waan uga hadlay haddana waan ka hadlayaa dhallinyaraduna xogagaal waxayna u ahayn yaan qabaa wax badan way og yihiin laakiin ma oga waxaa laakiin maanta idiin caddaynayaa ilka case inay gacantiisu naafo tahay la dilay la jir dilay loo xoog sheegtay laguna dilay cabdi maxamed cumar daraaddii cabdi maxamed cumar dadkay wada dhasheenna waa la yaqaanaa dadkay dagaalka wada geli lahayeenna waa la yaqaanaa marka waxaan idin leeyahay arrintaa dadweynaha Soomaali state meel walba ku nooshiin qaarada adduunka ku nooshiin war cadaalad darrada diida war qofka walaalkiina la dulmaya lama dulmi kara dhaha
warbeeri qaatanimada iyo maaragtay interestnimada iyo laablakaca arrintaa ka tanaasula madaxweyne markuu yimaado waxaan ognahay inay dadku aad u qiiroodaan dad badani oo ina uncontrol yihiin ayna isweydiinin future-ka dambe waxa ka iman doona xataa inayna isweydiinin future-ka qof walba waa inaad yeelato wax ku qabta waa inaad leedahay meelaad ku dhammaato iyo meelaad ka bilaabato haddaad tiraa waa ma dhammaato waa wareer weeyaan maanta waxa weeyaan arrintaa ilka case maxkamadda shalay la keenay isagoo dhaawaca shalay la keenay oo biyo la cabsiiyey sun iyo waxayna la garanayn la cabsiiyey oo leey qasab wax ku sheeg muxuu sheegi waynu ognahay waddanka waxa raggii dawladda la shaqeeyay dokumentigeeda wax dhan baa yaalay muxuu sheegi oo laga sugayaa ma argagixisu hogaaminayay dawladdii wuxuu taageersanaa cabdi maxamuud cumar dawladdii cabdi maxamuud cumarna magaalada jigjigay joogta say u dhantay ayadan xabadi kama dhannayn waxa isaga laga raadin muqumbuleed waxa ku aasan dheemana oo laga dhex raadinayaa raggii bukhaarigiisa ahaana way joogaan oo waddanka ka shaqeeyna buur bay ka yihiin shakhsiyaad khaasa in la xidho ama gaar loo maago la soo dhaweyn maayo ama waddanka ha la isxisaabiyo si official ah oo muhiim ah ha loo xisaabtamo walaa nin jabhada walaa nin maaragtay new police si sharci oo official oo muhiim ah in la isxisaabiyo inaad ogolaataan weeyaan Soomaaliya ka bacdi markaa la isu yimaado inta u badata dhimashada iyo dilka iyo rafaadka in markaa la ogaado marka waxa ka dhici doonta waxyaalahan la maqal taariikhda ka dhici doonta marka anu waxaan ku talinayaa sidii markii hore la isku ogaa ee la isu daba qabtay ee jeelka baroortu ay ka socotay waxyaalihii oo kale wax la mid ah shacabkaas inay xusuustaan soo dhaweyn min marka waxaan leeyahay isdaba qabta iska ilaaliya ninbaa xukunkayga ku socda ninbaa hunguriinaya ninbaa jaga ku tartamaya ninbaa future-ka soo kacaya ninkaasu intii xisbigu maqnaanaya ha xirnaado ninkaasu inta maaragtay xisbiga la dhisayo inta dawladda kale dad kale la keenayo war waxaas macquul ma waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaan dawladdana waa loo simayo nin doono ayaa imanaya jabhadii la kala fogaa ee waliba aad diideen inaad soo dhaweysaan inaad isku sawirtaan aad diideen wax walba diideen intaasoo sano aynu kala taagnayn wax walbaan kala hayn yaad hadda isku sawiraysaan ood ka ilaalinaysaan qaarkiin aad ka dhuumanaysaan inaad runta sheegtaan war waddanka genocide-ka waa loo wada geystay dhibaatada way wada geysteen dadkani kulli dadka waddanka joogana waa wada criminal 85% waa wada criminal ka ugu sahlan ayaa wuxuu ka shaqeeyay inuu qabiilo dhan iyo dad dhan iyo qoomiyad inuu soo aflagaadeeyo oo nasabnimadooda iyo sirkooda iyo tafiirtooda meel kaga soo hado maxaad oran kartaan marka ayada ku jawaabi kartaan in marka dib la isugu laabto yaa aad muhiim ah cafiskii Ethiopia ay Oromo qaadatay ee isku cafiday idinkuna marka waxa doonaysaan kii oo kale inaad qaadataan waad kari laadiin inaad walaala Soomaaliya noqotaan waad kari laadiin inaad hal meel ka soo wadaysataan waad kari laadiin inaad isku hakataan oo waliba dhul badan oo Soomaali degan tahay inaad isku wareysataan qaarkiin ku nastaan waad kari laadiin I don't know waxa meel ay idinkaga socoto ma garanayo marka ani waxa ila qumano idin soo jeedinaya midnimada dantu idinku jirtaa walaalka inaad ammaan siisay dantu idinku jirtaa xukunka in loo simeeyahay bay dantu ku jirtaa war intaas oo madaxweyne ayaa meel walba ka sharaxna oo meel walba isgeeysa nin walbana uu tartama waddanka nin walba madaxweyne ka noqonaya nin kasta uu tartamaya nin walba ka qayb galaya dadka aaminsan dad khaas ah xukunka inay hadda ku soo laabtaan waxaan idinka ballan qaadayaa maanta ood qalbigiina gelisaan oo niyadiina gelisaan Allah wuxuu qoray mooye wax kale inuu suuroobay marka ka bacdi nin walbana wuxuu galabsado baa laga jaraya haddana waxa loo baahan yahay shacabka muddo dheer buu dhibanaa oo loo doodayo oo dhibaatadiisa nin walba meel ka maray oo raggii dhibaatada geystay ee qaar badan geystay ee ilaa ugu dambeysay la shaqeynayay maanta inay isku dayaan waxyaalo kale inay ka shaqeeyaan waan fashilinaynaa taana kana waxaan u arkaynaa inaan tala haynin waxaana soo jeedinayaa inay shacabkaasu ka hadlaan arrinta iyada si official ah inay uga hadlaan baa loo baahan yahay shir kastoo dhacayana waxaa loo baahan yahay shacabkii iyo dadkii maamulkiisa iyo dadaalkiisa waday inay si bareero oo wanaagsan
taageero fiican ay muujiyaan laakiin haddii dhuumaan la isku dayo ama 3 qof iyo 2 iyo 5 iyo 6 laga yidhaahdo shir baan qabanaynaa oo dad baan odhanaa aakhiritaanka way fashilmayaan shacabkana meel cidla ayay kaga tegi doonaan iyaguna bar cidla ay ku dambayn doonaan insha Allah haddii la yidhaahdo waxaan leeyahay dadka qaarkood aad bay isu garanayaan dib ugu soo laabta siyaasadda si toos oo official oo muhiima ugu soo laabta hor imaada shacabkii idin dirsaday ee mas'uulka idinka ahaa ee iyaga baadasha idin ahaa ee maartay garbasimanta idin ahaa ee idin dalacayay ee in meelo badan la idin dalaco saa idin warfad ka soo shaqeeyay gacantooda ku soo laabta waad ku soo laaban weydeen Soomaa oo duulista kolba magaalo u duul kolba meel u duul arrinta ayada waxay keeni doontaa arrin aad u xun oo meelan laga soo noqo ay adkaan doontaa dhici doonto taana waxay keentay shacabkiina idinku arkaya in la dhibaateeyo qaarna ay muraayada ka daawadaan ay yiraahaan arrin baan sameeynayna shirar baan sameeynayna maxay baan sameeynayna kan baan sameeynayna shirarkii la waday iyo wixii la isku waday soo la iskuma ogeyn shirkii dawladdii wax walba way dhamaatay meel fiican bay ku socotaa waxaan rabnaa inaan hore u socono soo ma ahayn ma waxaan isku ogeyn in dad intii la shirqoolo la dhibaateeyo dhibaatooda inaan daawano haddana shir kastoo la qabanayo dadkii ehelkii ee ka dhashay ee qof ka dhashay inuu shirka idiin soo camiro oo haddana noqotaan dad isku meel ka soo wada jeeda oo meel wada socda noqotaan la ma suurtoobayso saddex dibi oo mara gudgududan kala xiran saddexda dibi mid walba meel cidlaan baa lagu qalan doonaa aakhiritoonka haduuna baadashiisa ilaalinin una ku toosin si official haduuna u ilaalinin baadashiisa oo una ogaanin baadashu ku duulaya meesha motorku ka xiran yahay hadii ay sidii loogu talagalo isticmaali waayaan waxay noqonaysaa meel xun bay ku dambayn doonaan wayna imanaysaa arrinta ayada ama belief gareeya ama belief gareynin ina iman ba wallahi oo waliba oran doontaan maalinaan maanta ahayn war ilmaada reyaalo sidii hore fiicnayd war sidii hore wanaagsanayd war maxaa saa u yeesheen war maxaa ka saa u yeesheen yaa iman doonta meel walba waxa socota dood baa socota waxaan arkaynaa dad waxyaalo badan soo gelgelinaya ereyo soo gelgelinaya wax soo gelgelinaya oo media dad inta maartay dhalinyarada aad u wareerinaya oo dhalinyarada aad u mashquulinaya waxaan leenahay fikradda cadaaladda waan dhiibaynaa qofkii khaldanna waan ka jawaabaynaa qofka aniga khadara idoonaya ee amale khadar baa maartay fikradda qaba anu fikradayda cadaaladda ee xaq waan ku adimayaa qofka dood qaba ee aniga ila doodaya haysi soo diyaariyo qofka doonaya ee raba inaan dadna qarino dadna inaanan ka jawaabin oon u aamusnaano waxaan u arkaa dad khaldan inay yihiin arrintana ay dhalinyaradana been u sheegayaan waxa dhalinyarada u sheegaysana waa been dan gaaraadna ilaalinaysaan waadna fashilantiin anigu mar walba waxaan idin leeyahay qofkii khaldan waan sheegayaa yaa iga ilaalin kara marka wiigii hore markaan hadlayay daraad markaan hadlayay waxaan ka hadlayay qadiyada guud ee dulmidiid baan ka hadlay xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo dhaliishooda nin sheegan kara ama oran kara ninkaas aniga saasa iyadoon la caayin ninka doodi kara ma jiro ka qabiil ahaan igu doodaya qabiil baan mid baan aniga isku dhinacnahay doonaya isku nooc doonaya hadaa doonayso inuu isku dhinacaad noqotaan xukunka dulmidiid ama taladiisa iska wareejide ka bacdi markaas cid faragelin karta ama hadal qaadi karta ama maartay wuxuu ka sheegaysa ama warkaale waxa oran karta ma jirto waana dad tola oo wada dhashay inaan wax isweydiino aad bay muhiim u tahay laakiin dadka sida xun wuxuu turjumaya ee khaladka sheegaya ee maxaad saa u yeesheen waanu oranaynaa arrinta ayada joojiya baan leeyahay wariyadan waad khaldantiin qasbaad hore uga taliseen haddana qasbaad ka talinaysaan mar walbana waxaad noqotaan dawladii hadday timaado kantaroor ma lihidin qaad baad u qiirootaan bahal qiira jabaan la yidhaaho ayaa idin gasha oo maaragtay an kantaroola isma qaban taqaanaan xataa waxaan wuxuu noqon doona xataa isma weydiisaan intaad duushaan markaad jabtaan baad dadka kadib xusanaysaan hal laysu yimaado kan wey hadda waa maraad maaragtay jabtay arrinta ayadana lama soo dhaweyn karo dhalinyarada dadka ku dhex jira ee media aad uga hadlaya ee qoraalada soo gelgelinaya qofka u doodo Cabdullaahi Yuusuf Weerar ama ilka case midku dooni baa ahaado hadii loo hadlay ma aabaha baa la caay ma awgaa baa la caay ma inaadeerka baa la caay waa maya hadii lagu yiraaho dhibaatada dadka geystay ee wadanka ka geystay
Ethiopia oo dowlad deegaanka way joogan waa la dalacsiiyay ma in adeerkeeba wax loo dhimay baad markaa odhanaysaa war maceeba arrinta ayada qofkii sheegay yuu dambi ka galay dadka marka tuumbada raacaya ee shakhsiyaadka meelaha ka wareegaya waxaan idin leenahay waxaad wadataan waxa weeyaan wax aad u khaldan sidii bisada baasha bisada la yiraahdo yaa abaalkaad u gashay iyo markaad abaalka wixii dafiraad bay samaysaa tii wax la siiyay ma aha tii ku socotay ma marka waxaad ka dhigaysaan dadkii dhannaa ee wada socday yaa sidii systemkii bisada u dhaqmaysaan indhaha isku qabanaysaan marka lagu arkan indhaha kala qaadaysaan may dadka khaaska ee arrimaha soo gargelinaya waxaan idin leeyahay waa laga hadli wixii wadaninimada wixii xaq waa laga hadlayaa nin walba inaad ka hadashaan waa waajib inaad u doontaan haddaydan u doodinna waxaad tihiin khaa'imiin shacabkooda dafiraya been u sheegay hawla tuumbada u raacay dan gaarana wataad noqonaysaan haddaad laakiin hal meel ka soo wada noqotaan oo sidii sharaf la u wada wadaan oo si fiican shayga loo wada cambaareeyo qofna lama eedayn karo marka iyada yaa odhan kara qofka marka lagu yiraaho war qofkaasu khaladkaasu galay ha soo garbo hadii leeyahay maceeba waxun maaha laba nin oo saaxiiba oo wada dhashay oo saaxiiba ayaa wax isweydiinaya oo garba xumaana isuma qabaan inay iskarbaxana wax isweydiiyaan xaq bay u leeyihiin wiigii hore markaan hadlayay een suldaanka ka hadlay muxuu ahaa Bashiir Garaad anoon caayin oo midna cadaabin waa ilmaadeerada waa saaxiibaday xaq baan u leeyahay weydiiyo soo garbaxo ma idinku yiri hadii kale waa leedin tuunsan yahay nimayo kale isbaraha maceeba qofka marka wax kale uu ka hadlaya ee ka sheegaya aniga Suudaanku saaxiib baan nahay kulligay maartin joog saaxiib baan wadnay xumaan dhibaato oo naga dhaxaysa habeen ma jirto waad ku fashilmaysaa qofka isku daya ee ama system qabiil wuxuu bedela ama waxyaalo kale u bedela waad ku fashilmaysaa laakiin siyaasadda iyo wixii jira inaanu isu sheegno waanu isku ognahay waanu isweydiinayna xaq baan u leenahay isweydiino saawaxa ka iman baan ognahay isna wuu ogyahay anna waan ogay marka maxaa dadkiina miidiyaha dhalinyarada ay isugu jawaabaysa ee qaar aad u buubaya waxaan idin leeyahay waa idinkii suldaanka kaga cararay meesha cidlada ee Cabdi Ilay shirka u buuxiyay soo kuwii ma yidin qaarkiina badan soo kuwii ma yidin markuu suldaanku dilaa warka jooga ee waliba 100 dhiigu ina marayay ee nin walba la sari laa soo kuwii ma yidin seed ku oran kartaan maanta waan difaacayaayo waxaan hadlayaa waxbaan ka suldaanka yaa dood ka qabaya haysta shacabku xukuumay odayga u ahaa ayaa wax weydiiyay xaq bayna u leeyihiin maxaad rabtaan markaas waxaad rabtaan tuumbo inaad raacdaan oo u bedeshaan line kale oo system aan loo baahnayn inaad soo gashaan baad rabtaan haddii walaalkiin ilkaase ama maartay Cabdullaahi Yuusuf haddii lagu yiraahdo u hadla ma cadaalad darra waa maya hadduu ilkaase dambiilay ee dawladda dambi u haysata okay in la dilo oo la jir dilo miyaad ku raacsantiin in daawo suna la siiyo oo maartay intii la siiyo wuxuu yaan la garanaynin inuu carabku dheeraado oo maanta isagoo naafa oo gacantiisu naafa tahay in maxkamadda la keeno ilaahay baan idinku dhaariyay maad ku raacsantiin hatta hadduu dambi idinka galay idinka ama cid kale dambi ka galay waan ognahay khalada uu galay iyadoo la ogyahay laakiin in la dilay miyaad ogashiin saakuwi la midka lama dilin كل ما تكاديل الدلو أو دبتلو جيستو وينو قرابينا مركا يدا مركا واي ما حيكونوا كي جد سيهين سؤال شيء قصو جواب أرنتها يدا أد بمهم تاي دلني يردنا وحنا لا واحد أدلو وريجيسان ديو بروباغندا أدلو وريجيسان وحاتهين دلني يرو انتي في عني ويس أكتر inta xununa way iskaranaysaa dhalinyarada fiican waxa leeyahay dadaalkii aad wadeen ee idinku taageersanayn annaguna aan idinku garab galnay annagoo odayaashii galaa gurtay dulmidiida aanu idinku garab galnay ee idinku soo dhaweynay ee baadasha idin noqonay wali sidii baan baadasha idinku nahay laakiin inaanu saxno wax walba xaq baan leeyahay laakiin in idaan kala biiqin oo idaan kala jajabin
oo idaan isku dayn propagandada dadka wada een awalba idin la soconin ee maartay haanti dhinac u tolan ahaa kuwa tol hamoodina idinka idinma maqna waa kuwii weeyaan midnimadiina inaad ka shaqaysaan yaan idin kula talinaya qof kasta oo dulmana inaad si official shir jirayd uga qabataan baan idin kula talinaya oo qof walba u doodaan laakiin haddaad tiraa uma doodayno dulmidiid baan nahay midnimaan nahay midnimadiinu maxay sheegaysaa haddayna qofna u hadli karin qofna u doodi karin qofna wuxuu sheegi karin ma waxaa tiin marka iyada bal maartay musqusha baashi musqusha bay wax galaan idinku ma wuxuu baa leeyahay ku shubid haysid su'aalka waxa ma dhiiban taqaanaan miya arrinta iyada waxaan idin leeyahay aad uga dhiidhi arrinta iyada ka jawaaba qofka dulman dulmigiisa diida intaasoo arrimood baa idin soo martay oo cajaa'ib oo la idinku cabiray temperature-kiina aad baa hadda loo cabirayaa weli heatku intuu idinka gaadhsan yahay aad baa la idin cabirayaa waana la idin cabiray intaad maraysaan aad baa la idin ogyahay marka dhiig joojin yar waxaa la idin siinayaa kiina yar baa la idin liqsiinayaa hurdaad dhag wada odhanaysaan kulligiin waqti la kala tegay baad mid walba odhanaysaa allah warwaagii muu bariyay waxaan idin leeyahay waxbaa la kala goosanayaa united midnima wax lagu kala goosanayaa tartan baa lagu jiraaye meel walbee tartanka inaad ka qayb qaadataan idinkoo midnimo ah yaa la rabaa inaad ka qayb qaadataan laakiin ninuuna ha isku dayn ninkaasu siyaasadda ma soo geli karo annagaa siyaasadda sanadka gelayna may ninkii siyaasadda alla u qoray ee ku soo baxa eeyna kasbada ee maaragtay aan aragnay inuu wax qabanayo yaan leenahay welcome laakiin qof aana kasbanin waxba noo soo kordhinin maya haddii tacliintiisa lagu qaato oo qofka waxbarashadiisa lagu qaato oo cilmigiisa lagu qaato oo maaragtay isagu uu waxbarashadiisa shaqo ku helo qof ku baadar garayn kara arrinta ayadii ma jirto laakiin qofka shaqada uu hayo waxaan u baahannahay in lagu xishmeeyo laguna soo dhaweeyo laguna isku tigarayo laakiin waa inaan ammaan ka helaa sharciga annagoo ilaalinayn waa inaan ammaan ka helaa laakiin inuu qoota nagu dayo oo uu yidhaaho ku dallac ninkan maaragtay dadkan haddaad dhibaato geysato ama dadkan kala kaxayso ama midnimadooda kala erido uu taa isku dayo qofkaasoo kale waxaan leenahay inaad kuma anfacdo kumana soo dhaweynaysa arrintaas la qabso togu wuxuu u socdaa midnimo iyo dalaayad guud buu u socdaa dhallinyaradana waxaan u soo jeedinayaa go'aanka ugu muhiimsan u soo jeedinayaa war niman yahow midnimadiina dan baa idinku jirta waxaan idiin sheegayaa shirka aad isugu imanaysaan eed weliba sabtida inaad ku wada hashaan aad doonaysaan oo weliba aad rabtaan inaad garantaan aad doonaysaan ood rabtaan mid walba dhaliishiisa in loo sheega aad doonaysaan aad baan idinku soo dhawaynayaa laakiin ha isku xanaaqina ha isjiidhina ha isku dayna inaad maaragtay noqotaan dad kala fog ha isku dayna waxaad isku daydaan inaad nin walba temperature-kaaga inaad wax ka beddesho ood heatkaaga wax ka beddesho ood wax badan liqdo oo tiraa mushkiladaas waxaa ka wanaagsan adigoo malaha liqa wax badan oo ka baac maaragtay arrintaas intay wax kala keen lahayd inaad liqda wanaagsan kaad aragtay inuu khaldan yahay si wanaagsan oo sharaf leh iyadoon cay iyo aflagaada ku jirin si wanaagsan oo sharaf leh loogu sheego war waxaa daa ka bacdina si cadaalada oo wanaagsan uga hadla wixii dantiina midnimadiinana golaha gurtidana haddaydan ka dambaynin oo idaan iyaga ku xidhnaanin oo idaan iyaga xidhiidh wanaagsan la yeelanin oo idaan ma aha maamulka jira ka bax iyo odayaashan dulmidiid ka bax arrimooda ka bax wax reerku wuxuu leeyahay odayaal buu leeyahay odayaashooda haddaydan ku xidhnaanin wax idin kala socon doona ma jiro waad habsaamaysaan ha iskuna taageerina cadaalad darro iyo dulm nin kastana waa walaalkiina oo ama aad aragtaa inuu dulmo yahay ama nin soo ku xuqulbaadan si cadaalada uga jawaaba ha qarinina ha isku dayna inaad qarisaan waddankoo dhanna in la is wada xisaabiyo oo la wada xisaabtamo oo si official loo wada xisaabtamo arrintaas ka ololeeya idinka ka hor ma la arkin nin liidarkoodii uu xidhan yahay idinka ka hor ma la arkin kuwii raggooda meydkooda ku farxashay ee isku sawiray ee waxaan arkay sameeyey ayaa yaa dhammaantood jigjiga ku raaxaysanaya oo ku nool idinkuna halkanaad waxaad ka hadlaysaan meel hoose oo loo kalo qarni hore laga tegay war maanta yaa madaxweyne
ورهيرك مدحوينها ضياع يا تشجع أسر رئيسها هيستو ما أنت أمر كيسو شقيا ملهي زيرو مركب واحد كلتها لنا يا واحد كلتها لنا يا ونمر البيدين شيء سياسة وحي مريسا ميلو آدو أدق بمريسا waxaan idin sheegayaa Cabdullaahi Yuusuf weer xaalad diisu waxay maraysaa siyaasad aad muhiim ah ayay maraysaa dad badan way la degi doontaa ku bishaaraysta dad badan way la degi doontaa meelo badan bayna ka soo dhici doontaa ilaa from Kenya ilaa iyo maaragtay ineen federaalka ilaa iyo magaalada Addis Ababa magaalada Jigjiga dadkeenoo dhan bay gelaysaa siyaasaddaas dhammaanteena waa la isdilqay meel kasta waxa laga taageersiin oo idin sheegaya Cabdullaahi Yuusuf weer inuu taageersiin shacabkiisa oo dhan inuu taageersiin dhammaan gabdhaha say u dhihiin anigu waxaan aad u sharfayaa oo soo dhaweynayaa gabadha laga soo doorto magaalada la yiraahdo Garbo ee la yiraahdo Marka aad baan u sharfayaa cimrigeeda Allah dheereeyo awlaadeedana Allah u barakeeyo raas degan Allah ka dhiga shaqada haysana Allah ku asturo dhammaan dad aan magacyadooda soo koobinin oo ciida ka badan oo kala joogsi lahayn midnimada qadiyadu meel fiican ka taagan tahay ayaan sharfayaa soo dhaweynayaa wanaaga ay sameynayaan iyo sida ay maaragtay uga imanayaan iyo safaraha kala gedisan iyo waftiga kala gedisan ee ka degaya ee dadka ciida ka badan ayaan aad u sharfayaa oo waliba hogaaminayaan dad aad u badan oo aqoon yahamiina oo cid kasta dad aydaan filanaynin maanta oo aydaan filanaynin oo idaan islahayn way ka hadli doonaan Cabdullaahi Yuusuf weer oo waliba ra'iisul wasaarayaal soo maray oo meel walba soo maray oo hadda wada oo idaan aqoonin oo xataa aydaan ogeyn inay dadkiina yihiin iyo in kale aydaan ogeyn ayaa jira oo meel walba maanta ilaa Itoobiya meel walba laga hadlay arintaasuna meel khatar ay maraysaa dad bayna dhibaato badan waxay ka soo gaadhaysaa dad aan filanaynin yaa waxay kaga soo baxaysaa meel ayna filanaynin marka waxaan leeyahay dhammaantiin midnimadiina guud iyo qadiyadiina inaad ilaalisaan bay dantu idinku jirtaa inaad Cabdullaahi Yuusuf weer aad isku laysaan ama isku qabataan ma ninkii Cabdullaahi Yuusuf weer wuxuu qaba shakhsiyadiisa ama qabiil ahaan uu qaba wuu joogaa laakiin dawladda siyaasadda wadanka ama qofkii wuxuu qaba wuu joogaa ehelkiina wuu joogaa dadkiisina wuu joogaa qofkii dambi u haysta ha iskeen laakiin dawladdan xidhatay ee dadka soo maray hadday shacabkiisu u hadlaan ama dadkiisu u doodaan qofoona hoo arkin in cid la dulmiyay ama qabiil wax loo dhimayo qabiilkii isagaaba dadka laakiin tuumbada raacaya ee awal la jeclaa inay qabiilka aad uga shaqeeyaan ee doonaya inay dadka kala kaxeeyaan arrintaas laguma kala tagayo laguma kala soconayo midnimo baana laga qaadaya ilaa haddana wuxuu idin leeyahay ilaa saacadan aan kula hadlayo waan aniga dawladda ay soo xidhatay iyada waxay yeelayso og idinku war midnimadiina iyo cadaaladiina iyo horumarkiina iyo inaad wax noqotaan ku fikira war hooy qeyrkiina ka hadhina baa leedin leeyahay markaabaad saa u wareegaysan jirriq hebel baa wax loo dhimay hebel baa la yiri war kan la hadal hayo miyuna la mid ahayn miyuna madaxda leaderka ahayn haddii wax la sheego ama qof la yiraahdo hormeeri cadaaladda dadkii dhibaatada geystay hala wada horkeena ma xumaanba dawladdo dhan ee Cabdi Maxamuud Cumar maamulkiisa baa jooga marka maamulka Cabdi Maxamuud Cumar ma difaacaysan dhalinyaradan waxaan ka hadlayaa waliba khaas ahaan dulmidiidka ee waliba iyo midnimada labadaba waay aad u dhiidhiyaysaan hebel baa wax la yiri waa ay hebelka sheeganaysaan waxaan idin aragnaa dad habeen gudbaya oo godkay ku dhacayaan aan ogeyn meel ay joogaan markaan waxaan leeyahay mar walba idin kula talinaya oo qadiyada guud kula talinaya niman yahow midnimada dantu idinku jirta qof kale oo la dhibaateeyay oo maanta daawol sunan la cabsiye ama la cabsiye muxuu ahaa biyo waxay yihiin aan la garanaynin oo carabku dheeraaday ninka reerka ilka casaaba la hayaa oo la jijabiyay intii hadda ayaa la hayaa cadaalad miyuuna u baahnayn haddii xataa dambi lagu haysto ma in la jirdilaa ma in gacantu naafataa ma in maanta isagoo maxkamadda gacanta naafatay in la keeno cadaalad darro miyaan ahayn waxaan idin arkaa markaas inay ahaan dad aan cadaalad ku soconin iyaguna cadaalad isku ogolayn kullu dulmi doona iyo kullu dulmiina aan cadaalad u soo wadin yaan idin arkaa oo
waqtigan xaadirka taariikhda lagu jiro aad moodayna in la haysanin war ninka hadduu khalad galay ama aad dawladdu xidhan yahay cadaalad uu bay cadaalada ku taageera yaan la dulmin yaan la dhibaataynin yaan la jirdilin meeydaan oran karin ilka cabdiilay abti u yahay maxay war cabdiilay ragii la dhashay reerkoodii baa jigjiga daadsan oo waxba loo dhimaynin idinku maxaa tiin markaa idinku soo dhaweyn maayo arrinta ayada waxaan idin arkaa koox dad khaasa oo dhiigooda tuumba lagaga miiray oo barax yahay baan idin arkaa barax inuu dhiigun yahay baan arkaa arrinta ayadana ma idin fiicna qeyra jabaanka aad u macaana iska daaya shaygana idinkoo sharfayo oo taageersan aad ugu dadaala inaad sonkorta inaydan isku kicinin oo isku daydaan inaad tabajarkiina cabirtaan oo qeyra jabaanka iska daadisaan oo idan laab la kac sameeynin iskantaroola si fiican isu kantaroola shayga isaga ma ogin waxa la yidhi caano fiiqleed oo si fiican loo kabasamo baday wax yeelaan fiirsimaad dheerayaasha wax walbana inaad la shaqaysaan dawladda ayaa muhiima laakiin qeyra aada iska taxadara ka taxadara baan leeyahay ilka casana dhalinyarada iyo odayaashuba inay u hadlaan oo yiraahaan sharciga hal horgeeyo laakiin in la dulmiyo jirdilka loo geystay cidii dhibaatada u geysatay sharciga hal horkeeno sharciga hal horkeeno inuu qofka way dileen ma ahayn dilaan ma inay gacmaha ka jabiyaan ma ahayn inay maartay daawo suna cabsiyaan ma ahayn arrinta ayada xaqna ma aha walaal ilaahay hadda ka cabsanaysaan oo Soomaalinimo doonaysaan iska ilaaliya godka hana dheeraynina ku dhici doontaan mooye anuu ilka casamaanta inaan u hadlo horena waan uga hadlay anoon la siyaasadiisa ahayn oona waliba maaragtay totally ana isaga shakhsiyadiisa xiriirna lahayn ana maaragtay siyaasadiisana ana ka helaynin laakiin dadkii la midka ahaa dadkii dhibaateeyay isagoo askari ma noqonay dadka maaragtay dilay ee xabadda la dhacay ay joogaan isagana maanta in waxa lagu sameeyo haddaan wadankii la xisaabinin waxaan u arkaa cadaalad darro dadka ka aamusayna waxaan u arkaa inay ku khaldan yihiin ay yidhaahaan war qofka sharciga hal horgeeyo in la dhibaateeyo maaha intaad ku soo cadaysanaysaan ha idiin xidhnaado laakiin waxba looma dhimin karo war intaas ma ceeb maaha marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay dadweynaha Soomaali State saa u dhantiin waxay dantu idinku jirtaa qof walba qofka walaalka ammaanna siiso qofka walaalka inaad ogaato xaq uu ku leeyahay haddaad garan weydo ood maanta adigana aad maalin walba ku faraxdo waxyaalo badan ku faraxdo wallahi billahi waxaad heli doontaan xaaladdu way isbedelaysaa san ma ahaanayso kii aan ka cabaadaynin Mustafa iska daayay Mustafa cidna dib kale kuma haye waxaad arki doontaan waxaydaan filanaynin ayaad heli doontaan wadankan Itoobiya haysata xorna maaha saad u fikraysaan ma noqon doonto korba leedinka keeni doona mid aan xaraash ahayn oo waliba kanaafa oo waliba maaragtay hardidiisa aan ka aydan ka soo kacaynin yaa mar kale idinku iman doona waliba ololo waxa la idinku wadaa innaba aan caadi ahayn oo meel kasta ah oo waliba channel sidii la idinku qaadi lahaa aad isu layn lahaydeen loo kala jabi lahaa oo laleeyahay meel aad u fiican oo khatar ayaa la marinaya waadna ka shalayn doontaan maalan maanta haddaydan ka shalaynin dib ha ila sheekaysaneen cid u gudubta haddaad aragtaan haddaydan isdaba qabanin waxaa oranaysaan khadar absame talo maxaa loo sheegay horena waan idinku sheegay xafiiska Mustafa waxa ka shaqeeyo oo dhan dhammaantiisna cadow ku yihiin hore baan u sheegay wasiirro badan cadow ku yihiin hore baan u sheegay afgambiinu ku imanayna hore baan u sheegay kulli waxaasan ilaa yoomin haadaana in lagu maqan yahayna isna uu og yahay xafiiskiina lagama dhammaadsan ilaa haddana waxaan leenahay madaxweynuhu inuu shaqadiisa dhamaysto waa waajib laakiin dadkiina u belief garaynayo inuu wadanku xor yahay ama saad doontaad yeeli kartaan ama ku dhaqmi kartaan ma jirto ciidanka militariga ugu badan ee wadanka idin la jooga wadankiina bililaqa lagu hayaa in la dagaal rabaa gun iyo baar guddigii waxa la kaga daray hal qof oo iyada oroma tahay option ma lihidin gabigiinuba waxaad tiin dad aan tirsanayn ma waxaad garan weydeen ilaa hadda waxa la qancinaya dadka diloo diiday tirakoobkoodii ama guddida wax khilaafaadka xaqooda inay helaan yaad ku dhicilaadiin inay inta shirka qabsataan inaad ka hadashaan ood ka doodaan yaad kari laadiin marka ba soo hashgadeynaysan
dad walaaladiina xiniyaad u leedihiin xaqiina waddankiinii baad saa u ridan lahayd garan lahaydeen marka waxaan idin arkaa dad xaqoodii doonan la oo laakiin maangadkii weli dibigii haya harqoodkii irfidii haya keliya oon wax adduunyada ka socdaba ka warqabin dadkii maangadka isku leynayay ee maangadka isku laayay ee arsaaqad maangadka aad arkayso nin walaalkii u khaarajiyay dadkii inaynu nahayna aad baa isu ogtiin marka weli maangadkii baad haysaane waxaan leeyahay ka soo baxa maangadka adduunyada dayaxa wax lagu qaybsanayaa dayaxa kaale wax ku qaybsado cadaaladana ogolaada xaqiidana raadsada shirarka kalena ee qabanaysaan oo dhan ama dulmidiid kale hadda ay qabanayaan waxa ka muhiimsan shirarka khilaafaadka Soomaalida la dhacay in laga hadlo oo laga doodo kuwaas aad muhiim ah maxaa shir looga qaban laayahay maxaa looga hadli laayahay wadankeena dhan baa in loo soo guuro la rabaa xaqini baa doonan laadihiin war anagu waxa ma ogolin baad kari laadihiin haye yaad marka been loo sheegayaa marka waxaan leeyahay wadankiina kama warqabtaan xaaladiisa waliba waa dadkiina wadankiina waa dafreysaan been baad ka sheegaysaan waad ku xad gudbaysaan waxba maaragtay ineen kama ogolidin kulligiina waa la idin sarifay jana seerka idin ku soo socdana saad uga sarfay garoobi lahaydeen ilaahay baan baryaynaa inay ka badbaadaan shacabkaas inay ka badbaadaan allah baan u baryayaa haddana waxa laga shaqeynayaa qof Soomaali qof inuuna Soomaali ka raacin shalay waay magaalada Awbarre ay u mudaharaadaysaa maxaa ka maqan maxaa dhibaato maxaa soo gaaray maxaa xumaana ka sheeg waxa weeyaan wax ka weyn ayaa hore u galay wixii ka weyna markuu galay ee maartay afka ugu jiro u buuxo ayaa waxa weeyaan wixii baa la isku fahmay walbahaar baa ku soo kordhay kabacdi waxay go'aansadeen systemka socda ee beenbeenta in tuumbada loo raaco ay arinta ka shaqeeyaan ay madaxweyne Mustafa ku mudaharaadaan dadna la leeyahay mudaharaadkii bay qaar ku dhaawacmeen oo maaragtay gawaari baa gadoontay la leeyahay arinta iyada ah fiiri waxay wadanka ugu dad badan tahay xagee kaga dad badatay wadanka deegaanka weeyaan dadka ku nool baa ku nool xaqoodii leeyihiin in la siiyo waa waajib laakiin inay mudaharaadaan ama dhibaato geystaan yaa dulmi ku haya oo la dhibaateeyay waan ka qabanaynaa Mustafa hadduu dulmiyay ama uu xumeeyay in laga qabto waa waajib dawladdu hadday xumaysana in laga qabto waa waajib jagooyinka ugu muhiimsan bay dawladdu ku leeyihiin waay ay marka arinta ayada u sameynayaan waxa marka laga dhaadhiciyay arinta socota ee nimankan Oromada ah ee waliba maartay odayaasha shirki waaga u dhacay sheekada beenbeenta ee la rabo Soomaali in lagu sarrifo laguna maartay suuqa laga saaro ayay run moodeen waxaan u arkaa arinta ayada inay meel xun ay ku dambaynayso ayna u wanaagsanayna sharaf darana ay ku tahay ayna ka shalayn doonaan maalintan maanta ay oran doonaan tan ma moodeen Ethiopia waxay moodayaan inay qaabkan ku shaqeyso mar walba inay naqshadi timaado ama oo maartay qolo timaado ma oga way isdhaga tirayaan dadka ugu tacliin badan bay kamid yihiin aqli la'aan ma hayso aqoon la'aan ma hayso way fahansan yihiin laakiin waxa la rabaa cabsi gelin in wax la tuuro waxba la kala goosanaya moogta in wax la yar tuuray rabaan wax laga tago waxayna hore u lahaan jirin bal in la tuuro oo dhexda ka helaan te wixiina dadkiibu gaari laayahay taasna ma shaqaynayso marka dadka saa u fikiraya ee hamigoodu halka marayo nin walba uu doonayo inuu wax goosto ee dadka qaar koodna waxay garaacayaan meel loo kala hiyo shakhsi iyo maxay ku wareegayaan adduunkana dayaxa wax lagu qaybsanaya marka waxaan idin cadeynayaa oo idin sheegayaa dadweynaha Somali State dagaal ayaa ku soo socda ciidamada waxa loo keenay in dagaal la geliyo oo dagaal adag lagu sameeyo oo waliba shacabkan inay isdagaalaan Soomaalidu jana sayri ka badbaaday in la geliyo la rabaa waxaan idin leeyahay ka digtoonaada cadaaladana ku soo laabta walaaladiina dulmiga ka lagu sameyn dulmiga ka daayada dhul Soomaaliyeed baa la qaatay hore loo qaatay haddana in la qaato la rabaa kamana dhiidhiyeysaan kamana